Shacabka dalka Kenya ayaa si weyn ugu falceliyay muuqaal ku faafay baraha bulshada kaasoo muujinaya laba wiil oo dhalinyaro Soomaali ah oo ku istaagay calanka qaranka Kenya. Kuna vitu haijanifurahisha. Unaweza fanya kama jokes but you must respect Kenyan. Dhalinyaradan ayaa taageero u ahaa kooxda Muqdisho FC waxayna ka caroodeen guuldarro 3-1 ah oo kooxdooda kala kulantay Kenya Police FC. Ciyaartan oo axadii ka dhacday garoonka Nyayo Stadium ee magaalada Nairobi. Sharciga Kenya ayaa dhigaya in qof kasta oo ku xadgudba astaanta qaranka uu wajihi karo ciqaab 5 bilood oo xabsi ah amaba ganaax lacageed oo dhan 5,000 amaba labadaba. Muuqaalkan ayaa si weyn ugu faafay baraha bulshada iyadoo qaar ka mid ah dadka falka dhalinyaradaasi ay ku tilmaameen ixtiraam darro. Dhanka kale, dad difaacaya dhalinyaradan ayaa xusuusiyay Kenyaanka in bishii hore ay jireen taageerayaal u dhashay isla dalka Kenya oo fal la mid ah ku sameeyay calanka qaranka Kenya kadib guuldarro ka soo gaartay Madagascar ciyaar semi-final oo koobka Sakafa oo xulka qaranka Kenya la ciyaaraysay dalka Madagascar. Dadkan ayaa isweydiinaya sababta dhalinyarada Soomaaliyeed kaliya loogu eedeeyay falkaasi halka kuwa Kenyaanka hore u sameeyay aan si weyn looga hadlin. Si kastaba ha ahaatee, labada wiil ee Soomaaliyeed ayaa markii dambe muuqaalkaasi ka saaray barta TikTok. Muuqaalkii hore ayaana si weyn loogu wadaagay baraha bulshada kadib markii shacabka iyo dadka kale ay la degeen. Warbaahinta waaweyn ee dalkani Kenya ayaa si weyn uga hadashay arrintan iyadoo dood ka dhalisay sida loo wajihi karo dhacdooyinka noocan oo kale. Dhacdadan ayaana hadal hayn ka abuurtay gudaha Kenya.